هكدل هذاك عيار هكدل هذاك عيار دقاقة بدي صوديس كوبدا صوديس قويس ماذا داف دينعيا ذا فيري ساحيكا وديب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعن وناكسن داوديال halka aad nagala socotaan waa Juba TV. ciid wanaagsan dhamaantiin muslimiinta meel walba ay joogaan. waxaan muslimiinta kulligood ama dhamaantiin idin leenahay ciid wanaagsan kullu caam wa antum bikhair. ku soo dhawaada xubinteena ciyaaro aad naga sugayseen oo aad u xiiso badan. ciyaaryahankii dhulkeenne dhammaanteenan sugayno ruuxayo istirkaago dadkoo dhan horodku dhaa. waxaa wadanka Finland gaar ahaan caasimadda Helsinki lagu qabtay koob lagu maamusay oo lagu xusayay Faarax Weli Cadow Sendiko oo ahaa nin u soo qabtay qaranka Soomaaliya waxyaabo badan. waxa uu ahaa nin taariikh fog ku leh sportska Soomaaliya iyo xiriirka kubadda cagta ee FIFA. wuxuu saameyn weyn ku dhex lahaa Soomaaliya iyo guud ahaan qaaradda Afrika. waxaa naga xasuusin ah in aad subscribe saartaan si aad mar walba ula socotaan barnaamijyadeena, gambaleelkana aad u furataan. qofkii mar saaraa mar kale uma baahna. dhiirigelin ayay noo tahay haddii aad saartaan like. waa mahadsantihiin. Allah u naxariistay Faarax Sendiko waxa uu caan ku ahaa sportska. waxa uu ku geeriyooday magaalada Qaahira. waxa uu muddo aad u dheer ku dhex jiray sportska iyo weliba siyaasadda Soomaaliya. Allah u naxariistay waxa uu sanadkii 2004 u tartamay jagada madaxweynenimo ee dalka Soomaaliya. waxa uu muddo aad u dheer ahaa gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta ee Soomaaliya. waxa uu kaloo ahaa ku-xigeenka xiriirka kubadda cagta ee Afrika, magaciisa loo soo gaabiyo CAF. Faarax Sendiko oo sidoo kale ahaa ganacsade caan ah ayaa ahaan jiray sargaal sare ka tirsan xiriirka kubadda cagta ee dunida ee FIFA. wuxuu kaloo xilli hore ahaan jiray ku-xigeenka duqa magaalada Muqdisho ee arrimaha bulshada. Sendiko waxa uu ku dhashay degmada Mahada ee gobolka Shabeellaha Dhexe. isagoo yar ayuu soo gaaray caasimadda Muqdisho isagoo farsamayaqaan ka noqday Radio Muqdisho. muddo kadibna waxa uu ku biiray maamulka gobolka Banaadir. waxaa goobta lagu qabtay koobka lagu xusayay ka hadlay raggii ka soo dhex jiray kubadda cagta una soo ciyaaray qaranka Soomaaliya, taariikh ku dhex lahay sportska Soomaaliya. waxayna kala ahaayeen halyeeye qaran mudane Enow iyo mudane Macalin Faaqid. hadalladoodana waxaa ka mid ah kudhuwahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. salaam kadib wallaahi Faarax Sendiko qof sheekadiisa inta ma ku soo qaadayso. aabba wuxuu ahaa sportska aad iyo aad ugu ficnaa. gudoomiyaha Afrika uu noqday, FIFA uu galay. ninkaana wuu ku soo gaaray laakiin aniga kuma soo gaarin. laakiin taariikhdiisa xoogaa waa maqlay marka koobka saa loo qabtay heerku garsoore weyn u ahaan jiray markii hore ilaa uu ugu gudbo Olombikada oo Afrika uu ka noqday madaxii labaad uu ka noqday. waa taariikhdiisa aniga aad iyo qosaysa sababtoo ah ciyaartii u dambeysay oo garsoore ka noqday ayaan galabtaas ciyaaray. koob janaal Daa'uud ahayd. waxaa ciyaaray Batroolka iyo Jeey. rigooro ayuu naga dhigay 3 daqiiqo iyadoo dhiman tahay. 3 rigoor 3 qof kala gantay. Cabdi Budiistaa gamay, ifkaa gamay. markii dambe Shaacir Shiikh waa cirka mari. saasaan koob ku qaadnay 2-1. marka Faarax Weli Cadow in taariikhdiisa la soo koobi kara ma aha. koobka waxaa soo qaban qaabiyay ururka Sombet. waxaana u qaabilsan qabanqaabada Master Shine Maskacade oo ah nin dhalinyaro ah oo firfircoon si fiicanna isku soo dabariday hawsha sportska. waxaa meesha ku wada ciyaaray kooxo ka kala yimid caasimadda koowaad Helsinki iyo deegaanada ku dhow sida caasimadda kale ee labaad ee Turku ayaa looga yimid. waxaana hogaaminayay kooxaha ka socday caasimadda labaad gudoomiyaha sportska ee Turku oo ah gabar firfircoon oo loo yaqaan Milyuun Daqare. waxaana ammaan loo soo jeediyay gudoomiye Milyuun Daqare oo lagu ammaanay dadaalka iyo habka qurxoon ay u maamuusto kooxaha ay gudoomiyaha u tahay. waxaana ka mid ahaa Macalin Faaqid dadka maanta u soo jeediyay. wuxuuna yiri waxaan u mahad celinayaa gabadhan Milyuun
sababtoo ciyaaro la qabto oo Helsinki iyo SB iyo meelahan lagu qabto oo buuq iyo rabsho iyo dagaal uu ka jiro ma arkin ciyaaraha qabanqaabinaysa Turku ilaa halkan waa si nabadgelyo ku dhamaada maasha Allah waxaa ka soo qaybgalayaasha ka mid ahaa dad badan oo aan halkan lagu soo koobi karin waxaana ka mid ah xildhibaanad Xabiibo iyo xubno kala kooban ugu dambeyn koobka wajigiisii hore waxa uu dhacay maalinta Arbacada waxaana la soo gabagabeeyay maalinta Sabtiga ee bisha kowga ahayd waxaana marka laga sheekeeyay taariikhda Faarax Sidiko wuxuu ahaa nin taariikh badan ku leh Soomaaliya khaasatan anigu waxaan ka xasuustaa waxyaabo fara badan oo ay ka mid tahay xilligii uu ahaa xigeenka CAF oo ciyaaraha Afrika qaybtana waxay haysay haddana garsoorayaasha saddex time-kaas aan filayaa inay ahayd xilliyada uu asili doona ninkii ay qabsan doonaan ninkii hore ee haysan jiray FIFA-da oo loo jiray Blatter dhibaatooyin fara badan oo xitaa dagaal fara badan uu ku socon jiray oo ay ka mid tahay waddanka Masar nimanka socday niman kale fara badan oo kala duwankii Asia markaas oo bilhamaam la oran jiray isaguna qadal markaa uu waloleynayay ay iska hor yimaadeen waxyaabo fara badan nin aad u adag uu ahaa ilaa taariikhdiisa dii wal sameeyay lagama gaari karo maanta marka waxaan leenahay intii dhimata Allah u naxariisto inta xanuunsan Allah caafimaad siiyo waxaan kaloo u mahad celinaa gabdhaha walaalaha sababta loo kasoo qaybgalay Maryam iyo Samiira arrimaha bulshada ka socda maxamuud adigina waa ku salaamaya iyo Jabal TV marka aad baa mahadsantihiin marka wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan soo dhaweynaynaa ciyaaraha maanta la qabtay iyo sida ay mataqaanaa sheeg wax u socdaan haddana reer Finland waxaana looga baahan yahay isku duubnaan iyo mataqaanaa in odayaashii sportiska lala joogo oo garabkooda soo istaago gabdhaheena nala joogaan waa arrin aad mataqaanaa u qurux badan waxaan leenahay walaalayaal mataqaanaa sheeg ummadda islaamka ee degan Finland ha isku duubnaadaan hana mataqaanaa sheeg waxa loo baahan yahay marka la qabanayana la isku taageero asa Axmed ahaanna waxaan leeyahay maanta meesha wixii ka dhacay wax caadi ma ahayn aad u maadsantahay aad iyo aad Axmed soo maadsantahay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دما وعلي والسلام يا maanta waxaan ka socdaa quality RU oo ah dalada ururada Soomaaliyeed waxaan ku faraxsanahay inay naga mid tahay Sombet RU oo ah ururka beeraheedka iyo familada iyo sportiga marka mahadsantahay inay igu casuuntay aniga walaashay Samiira waana ku faraxsanahay maanta inaan aragno inay koobkan oo kala dhacdo laakiin waxaan weli doonayaa in hablahana dhinacooda la geejiyo oo kubad iyo wax walba loo diyaariyo marka taasna aweys insha Allah maadaama uu yahay madaxda sportiga waxaan codsanayna inaan noo badisid wabillahi tawfiiq السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حقادكم هذا علينا يا تي في ورسن تي في جبل تي في وحنا عاد ugu faraxsanaynaa maanta ka soo qayb galo ciyaarahan quruxda badan oo aweys ugu soo dhaweeyay dadkan madax ka ah magaalada Finland marka waxaan leeyahay thank you so much sidoo kale waxaa hadal kooban ka jeediyay Master Sheena Maskacade oo qabanqaabada koobka soo agaasimay wadhawa walaalkay aad u dhawahay waxaan aad ugu faraxsanahay inaan juhudi iyo dadaal iyo waqti dheer aan ku bixiyo sidoo barnaamijkan ku dhici lahaa waxaana aad ugu mahadnaqayaa dadkii ila shaqeeyay oo aad ka mid yahay walaalkay aweys iyo dadkii rajabada ahaa iyo inta asxaabta ka soo gashay aad ay u mahadsan yihiin waxaana rajaynaynaa inaan taariikhda meel ka galno oo sportiga aan hore usii wadno waxaan kaloo aad ugu faraxsanahay in ay arrimihii iyo wixii aan ku dadaalnay aan guul ka gaarno insha Allah warbada wax ma taraayo waxaan ku soo guuleyn lahaa in wax fiican aan qabanay wax fiican aan qaban doono Ilaahay diyaaryankii dhulkeenne dhammaanteenan sugayno ruuxayo dhistirkaago dadkoo dhan horodku dhaaf ciyaaryahan صحيح كوديب